taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed wasiir dawlaha wasaaradda gaashaandhigga iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga difaaca golaha shacabka ee labada aqal sareeyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaasha nuucyada ciidamada badda cirka iyo dhulka iyo taliyaasha talisyada xoogga dalka Soomaaliyeed hogaamada taliska guud dhammaan saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marti sharafta qiimaha badan ee nooga ka soo qayb galay xafladan xil wareejinta ee ka socda ee saaxiibada taageera ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha amniga qaranka saraakiisha admis ee halkan fadhiya meediyaha dhammaan ka soo qayb galayaasha ka soo qayb galay xafladan qiimaha badan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaam kadib أولاً مركب وجهه رئيسه وحمد هذا سكال الله سبحانه وتعالى وجود هانتين يسوق كأن هالكان أنا قلنا بدقبنا مركب الله بعدنا وعن ربعنا نمهد عليو مضحدي قرنكا وجهه رئيس مدحوينها جمهورية دا في سعرها قرنكا يضمان غيبها كل دوان حكومة دا ورنتي مركب يسور تجليي إن أي سيان فرصة دان أن وأدي جايو بلشة إذا يقرنكية وعن لا يهدي هذا ما سنتين إلهي إذن كيس هل كان أنا جمانتي هذا البدن يجمع فرنو أن وحن أنت عن مسؤولية دهينا إذن كإلهي وقرأ سديد لكن أنت عن مسؤولية دهينا وحن حوجة ساري دونا اسمها عيدك حوجة تلك Soomaaliyeed دول بط يعر يجودهان قيبها كالدوان عيدنك وحن كشقي دونا إلهي إذن كيس تينتا عيدك حوجة تلك Soomaaliyeed وحن سيدو كله كشقي دونا بسدة saraakiil xigayn lafdhabar u ah dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo horumarinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan abuuri doonaa idanka Ilaahay kuwa hadda socdana ama kuliyadaha jira ama hadda loo diyaar garoobay in kuliyadaha ay aadaan Ilaahay idinkiis meeshooda ayaan ka sii wadi doonaa waxaan ka shaqay doonaa inaan xirfadlayaal gudan kara waajibaadkooda iyo shaqada qarankoodu ka sugaayo ee si habsami leh u qaba kara waqtigeeda iyo meesheeda haddii Ilaahay ogolaado وعن سيدو كلا أيضنا هرمرين كسماي دونا إلهي إذن كيس تقاقصات كعيدا كغيبه سكلا دوان سيد السحن كي وردون كسمعة ورسجارسين تأي ضمان تقاقصات أيوبا هيهين غيبها كلا دوان عيدا تاس أو صورة جلي نيسا عيدا كويني نقدان عيدا حرف الله ياله وجودن كره واجبات كقرن ككسارا هدي إلهي أقول هذا وعن الله سبحانه طبعا دل كان الدجال وكجرا سداس درادت وحا أيضا غير مهمة إنه نقدونه هدي إلهي أقول هذا دريالك عيدا كحوجة دلك Soomaaliyeed سيدا داوعيدا عيدا كحوجة دلك Soomaaliyeed أنا أقول لك عشان إن عيدا كإلهي ما ضحدي أن قرنك أيان سب وحده وحن وقف فكر دونا دريال كود هدي إلهي يراد عافمات وعن سيدا سوكل إلهي عيدا كيسي لا دبول باهيها عافمات أنا ما ضحدي أن قرنك أنا لك عشان دونا أنا كان وقت كان لقيل دونا سيدي لو هجاجي لها لوسي هرمري لها إسبتالك عيدا كحوجة دلك Soomaaliyeed iyo sidaas oo kale goobaha caafimaad ee laga maarmaanka ah oo saktarada Ilaahay idinkiisa ayagana aba qaybaha laga hirgel doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ognahay wadankan dabcan muddo dagaal ku jiray waxa jiray geesiyaal badan oo gabdho iyo wiilal leh oo u shahiida qarankooda si ay u gaarsiiyaan meeshii loo baahnaa sidaas daraadeed waxaan ognahay inay ka tageen caruuro badan oo agooma Ilaahay idinkiis waxaan madaxdeena qaranka aydan la kaashan doonaan xoogeena saari doona daryeelka agoontaas anagoo xooga saari doona inaan sameeyno xarumihii lagu daryeeli lahaa waxna lagu bari lahaa caruurta ay ka tageen geesiyaasha qarankooda u shiida hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale ayadana kuwa naafoobay sidaas oo kale ayadana xooga ayaan saari doonaa waxaana Ilaahay idinkiis ka rijaynaa haddaan madaxdeena la kaashano annaguna aan la nimaado dabcan aragtiyihii inaan naafada ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayagana aan samay doono xarumihii lagu daryeeli lahaa Ilaahay idinkiis maadaama ay qarankooda u naafoobeen
waxaan ayadana sidaasoo kale priority-geena koobaad ka dhigi doonaa dabcan haddii aan amni jirin oo aan argagixisada dhiigmeeratada aan ummadda laga qaban waxaan ognahay inaan waxba ka suurtogeli doonin dhammaan waxyaabaha la samaynayo sidaasi daraaddeed waxaan xooggeenna isugu gey doonaa la dagaalanka argagixisada iyo cid walba ee lid ku ah amniga soomaaliya waxaan rabaa inaan bogaadiyo هذا ما سنتين وعربا سيدا سوكلا أيضاً إن بقاديو جيسياش عيدا كحوجة دلك الصوماليات أورنتي أيضاً هل جنجود كجرة سي ومدة هذا أي أقوم بحيان برواقع ينبت نفط هذا يديقو هذا أو بحناية طبعاً غفك بناء نجا وح أو بحي وح أو قال سوى نفتيسة سيدا سدرات دير وحاليها آد يا آد أيادو ما سنتين هولوين أياد صوّدن ولين هاف أي يدين جوك تاد ما يسترين إذا كربتا وحنا رجينا يا inaan si wada jira u dhamaystiri doono haddii ilaahay ogolaado waxaan rabaa sidaasoo kale ayagana daraawiishta dowlad goboleedyada oo runtii ayagana la dagaalanka iyo amniga qayb weyn ka ah oo ayagana runtii aan dhihi karo aad iyo aad u mahadsan tihiin inkasta oo ay ku kala xoog badan yihiin dabcan oo ciidamada badan oo daraawiish ay joogaan isteediyada qaarkood oo aad ula dagaalama ababa difaaca goobo badanna difaaca dagaalka khawaarijta lagula jarna qayb ka ah ayadana waxaan rijaynaa insha allahu tacaala maamuladu inay qayb ka qaadan doonaan dib u xuraynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada ilaahay idankiis waxaan rabaa sidoo kale ayagana inaan runtii kaalintooda aan la ilaabi karin halkan ka xuso ciidamada dib u xuraynta deegaanka oo ayagana runtii qaranka hore garab istaagay kadib baaqii madaxda qaranku ay soo jeediyeen u jeediyeen bulshada Soomaaliyeed garab istaagay ciidamada qaranka garab istaagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii dagaalka ka qaata qayb aad iyo aad muhiim u ah aaminsanahay ilaahay idankiis haddana inay qayb weyn ka sii qaadan doonaan annagana ka ciidan ahaan iyo ka talis ahaan iyo ka hay'ada amni ahaan waxaan la garab istaagi doonaa wax allaala iyo wixii karaankeenna ah oo aanu kari karno maadaama waxa ay u dagaalamayaan ay yihiin amniga dalkan mas'uuliyadiisina ay annagana saaran tahay waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto runtii inaan tacsi u diro geesiyaashii qaranka oo runtii ayagana muxuu ahay ii sheegay waddankan u shahiiday si bulshadoodu ay nabad u helaan waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto in allaala iyo inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay ha bogsiiyo inta weli caafimaad qabtana waxaan u rajaynaa badqab waxaan u rajaynaa insha allahu tacaala inay dabcan hawshii ay wadeen ay sii xooji doonaan halkeediina ay ka sii wadi doonaan waxaan rabaa sidaasoo kale halkan inaan baaq uga diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed dabcan ciidanka qaranka guud ahaan hay'adaha amniga waxaan u taagannahay waa badbaadinta shacabkeena iyo dhisidda qarankeena qaybtii aan ku lahaynay waxaan rajaynayaa marka bulshada Soomaaliyeed haddii aan nimanka khawaarijta waddanka laga xureyno waddanka laga saarin dabcan wax soo kara ma jiraan dhammaan adeegyadii iyo waxyaabihii qaranku oo soo gaarsiin lahay bulshadiisana ayaga ayaa dabcan idin hor taagan waxaan isleeyahay marka wadada kale iyo bulshada Soomaaliyeed u furan waa inay garab istaagaan ciidanka qaranka waa inay garab istaagaan la dagaalanka argagixisada haddii ilaahay ogolaado waxaan
طبعا مركا هذا البضان أنا ما أنت هالكان إيجا مفرنو وعن ربا مركا أجود هم بالشدة الصوماليين ضباقة سيارو دريا إلهي إذن كيس هالكان أنت أنجوجنا طبعا صومالي وحي تراجع موضة جر أي وحكو جويان وحان إلهي إذن كيس واجب كأن كلا جودا نصارا سيدا صوك لا إذا أنا كشقي دونا إسبوحيرك هيدا أبنك إن شاء الله تعالى سأن جوجو ليس نضمان يولش عن لنا تاسا يعني إذا حوك ساري دونا إذن كإلهي وعربا مرلبات هي مرسد دحاد إن أم هاد عليو مدحدا قرنكا مدحوينها جمهورية يا رئيس وزراء قرنكا يا ضمان قيبها كلا دوان حكومة يا قلياشة شرع دجنتا وطبعا فرصدان يي اوغولاداي markale inaan hogaamiyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ilaahay idan kiis waxaan rabaa asigana inaan u mahad celiyo ugu dambeyntii taliyihii iga horeeyay ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo asigana dabcan waqti meeshaan soo waday runtii howlo aad muhiim u ahayna soo qabtay waxaad arkaysaan halkan dabcan waxyaabo qurux badan ayaa lagu soo bandhigay oo ay kamid yihiin dhismayaashii qaybaha dabcan qaybahaas wax badan oo kamiduhu ayagoo dhismayaashooda socda ayaan halkan ka tagnay ilaahay idinkiis waxaan ka shaqay doonaa inaan hirgelino kuwa kale oo harsan ilaahay idinkiis si ay u helaan ciidamadu dabcan xarumihii ay ku shaqay lahaayeen dabcan mas'uuliyadda qofku ma guda kariyo hadii wixii uu ku guda lahay awsan hay marka taasna idanka ilaahay xoogeena ayaan saari doonaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baad u mahadsantihiin